inaysan bil qaadanayn bil inay koonfur galbeed kaga dhamaanayaan qaabkan u diyaar garownay iyo istiraatiijiyada hadda la suubiyay oo dagaal sida ay hal mar howlgal uga bilaabanayo saddexda gobolba abaabul badan aan sameynay bulshada dhan aan ku wacyi gelinay ciidamada badan oo tababaro dhameeyay baan diyaarinay goobihii ay ka howlgeli lahaayeen yaan geynay ilaa iyo saddexda gobolba in ay ka bilaabato qorshe ah oo abaabul ah yaan sameynay marka guud ahaan dadka reer koonfur galbeed shacabka iyo ciidamada dawladda iyo cid kastaba waxaan diyaar u nahay inaan aan qaybta ugu muhiimsan aan ka qaadano howlgalka iyo la dagaalanka argagixisada shabaab mudan madaxweyne sidaad ka warhayso halganku waxa uu ka socday deegaano kale oo galmudug iyo hirshabeelle oo muddo 7 bilood ah ay ku fududaatay in lagu xoreeyo dhul aad u badan marka aad eegto koonfur galbeed oo aad ka warqabto deegaanada kooban ee qawaaritu ka joogan inta ayaad isleedahay waa qaadan karaa howlgalka dib u xoreynta koonfur galbeed wallaahi aniga aragtidayda horta koonfur galbeed degmooyinkeeda say u badan yihiin kulli markii laga reebo 4 degmo inta kala xor waa waxa ay joogaan waa meelaha la isaga gooshay iyo jidadka iyo sidii burcadnimada ahaa oo ay ku noolaayeen iyo inay miina galiyaan iyo wal markaan fiirinay qiyaasta waa joogaan dhibaatooyinkoodii iyo qaraxyadoodii iyo lugooyadii dadka waa la joogaan jidgooyadii iyo dhibaatayntii shacabka reer koonfur galbeed way ku haayaan muddo badan waa ku soo haayeen laakiin waxay ila tahay haddii loo jeesto inaysan bil qaadanayn bil inay koonfur galbeed kaga dhamaanayaan qaabkan u diyaar garownay iyo istiraatiijiyada hadda la suubiyay oo dagaal sida ay hal mar howlgal uga bilaabanayo saddexda gobolba meel kasta iyo degmo kastana aan u diyaarinay inay ayadana operationka qaybteeda ay ka qaadato marka waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yiraaho inaan sida ugu dhaqsaha badanna loo bilaabo gurmadka iyo diyaar garowga iyo fayska labaad ee dawladda federaalka ay noogu tala gashay oo madaxweynaha uu ballan qaadayna waxay soo dedejinaysaa sidii lagu soo afjari lahaa laakiin intii ka horeysa annaga howlgalladii waa wadnaa